daawadayaal marka la ku soo dhawaada warbaahinta caalamiga 24 anigoo Cali Raaya alaab idin warrama dadka Falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza kama niyad jabin duqeymaha xooggan iyo dhibaatooyinka loo geysanayo iyo dadka Carabta ugu dhawaa oo albaabada ka xirtay kaliya waxay isku haleynayaan waxay tahay ballanqaad ay dhanka Allah ka haystaan Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliya aynoo faahfaahiyo rajada wanaagsan oo ay qabaan dadka Falastiiniyiinta iyo guud ahaan Islaamka dagaalkani wuxuu ku dhamaan doonaa yahuud inaysan dhulka deganaanin lagana adkaado rabbi quraanka kariimka tabaaraka wa tacaala buu inoo sheegay suuratul israa bilowgeeda rabbi wuxuu sheegay tabaaraka wa tacaala aayadaha kaga hadlay waqadayna ila bani israa'iil reer bani israa'iil waxaan gaarsiinay oo u sheegnay buu rabbi yiri tabaaraka wa tacaala kitaabkii lagu soo dejiyay waxaan u sheegnay tawreed aha inay dhulka laba goor fasaadin doonaan kor noqon doonaan wax burburin doonaan dulmin doonaan ilaahi caasin doonaan adoomada ku xad gudbi doonaan la tusiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira labada goor dhulka aad fasaadin doonaan ay fasaadin doonaan mid walba ballan rabbi baa saaran midii hore ballantii markaad samaysaan ballantii rabbi waqtigeeduna timaado ba'athna 'alaykum 'ibadan lana waxaan idinku soo saari doonaa buu alla yiri adoomo ciidamo khalqigayga kamida ayaan idinku diri doonaa buu alla yiri tabaaraka wa tacaala markaasay idin qabsan doonaan oo idin burburin doonaan oo gurihiina ku dhex tamashlayn doonaan oo say doonaan idinka yeeli doonaan oo idin dullayn doonaan arrinkaasina waa xugum aan xukumay oo socon doona buu alla yiri tabaaraka wa tacaala aan waxba laga bedeli karin fasaadka hore ee ku kacdeen xagoor muu aha iyo ilaahi ku saliday mas'ala quraanku cadeeyay macad ma ahee mufassiriinta wax ka sheegay galimayn markii la duleeyo dhulkii laga qabsado la burburiyo la ihaaneeyo la duleeyo ciidamada ilaahi ku diro alla wuxuu tabaaraka wa tacaala thumma radadna lakum al-karra dawladnimadii awoodii baan idin soo celinayna dhaqaalaan idin siinayna ciidamo farabadan iyo dad dagaalamaad helaysaan markaas waxa la idin soo celinayaa awoodii cadawgiini baa ilaahay idin ka sarfinaya halka markaad joogtaan oo awood iyo dawladnimo kale la idin siiyo alla wuxuu yiri in ahsantum li anfusikum hadaad markaa wanaag u dhaqantaanna idinka idin taala idinka idin anfici wa in asa'tum hadaad xumaan ku kacdaanna falaha naftiina ma iskale waad fahanteen Soomaa halkaas ay idin la mari doontaa meesha idin la martay bay mari doontaa kolba saad u dhaqantaan waa midii labaad fasaadintii labaad markay timaado oo mar kale awoodda ilaahay idin siiyay khalad u isticmaashaan oo kibirtaan Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu markaana ciidan kala ilaahay idin ku soo diri doona iyo ummad kala la idin ku salli doona ummadaasi wajiyadiina xumayn doonaan way idin dullayn doonaan waa masjidkii iyo dhulkii bay mari doonaan oo ku tamashlayn doonaan wax kasto gacantooda gashay burburin doonaan oo eber ka dhigi doonaan dhulkay mari doonaan markaasay idin baabi'in doonaan waa markii labaad oo isla weynaataan oo kibirtaan ayadana waxa la yiri inta markii la idin ku sameeyo asa rabbukum an yarhamakum ilaahi inuu idin naxariisto mudan yahay oo cadawgii hadana idin ka qaado oo hadana waxooga awoodii iyo nafsi wax idin soo celiyo halka markay marayso dhageyso marka sunnada ilaahay ila qiyaamada socon doonto tanu marka ilaahay u dhigay tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri wa in udtum udna hadaad ku noqotaan markastood ku noqotaan kibirka iyo isla weynanka iyo dulmiga annagana waxaan ku noqonaynaa inaan idin ciqaabno oo nu adoomo kuwa idin ku salido buu alla tabaaraka wa tacaala markasta ila qiyaam saaca hada soomayna kibrin oo adduunki ma fasaadinin adduunka dagaalada ka socdaay dagaal ayna yahuudu sal ku lahayn waa yariyahay waana mid ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala quraanka ku sheegay ee rabbi inoo sheegay tabaaraka wa tacaala inay yihiin ahlu ifsaad iyo dagaal hurin rabbi tabaaraka wa tacaala kullama awqadu harban naran lil harbi atfa'aha Allah كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والله لا يحب المفسدين مركز الدب يهرنا عالم كالدبكة يدقال هذا كالسعودة كل لب يكلي
way kibreen marka way ismahadiyeen reer galbeedka iyo maraykanka taageeradooday wax moodeen waxaad aragteen bay marayaan maxaan sugaynaa marka caadu ayagii waa ku noqdeen maxaan sugaynaa marka waxaan sugaynaa ballantii rabbi ahayd cudnaa annaguna cuquubadiinaan ku noqonaynaa laakiin goorma iyo biyadi man taasaan sugaynaa sidoo kale fi suurati al-a'raaf rabbi waa ka inoo sheegay tabaaraka wa tacaala markuu ka sheekeeyey degmo reer bani israa'iil ka mid ah oo la yidhi maalinta sabtida ha dabanina malayga oo intay xeeladaysteen malaygii dabtay oo rabbi ka sheekeeyey kadibna qaybsamay oo 3 qaybood u qaybsamay qaybtii la kari waayeyna alla tabaaraka wa tacaala uu daanyeero u bedelay halkaa markii qisada la inooga sheekeeyey aakhirkeeda rabbi wuxuu yidhi wa id ta'adana rabbuka rabbiga wuxuu ogeysiiyo cid walba ogeysiinaya la yab'athanna alayhim ila yawm alqiyamati man yasuuhum suu al'adab inuu ku soo saari doono reer bani israa'iil ila qiyaamada laga gaarayo mar walba cid dhadhansiisa cadaab midka ugu xun cuquuba midda ugu xun cid dhadhansiisa inuu mar walba ilaahay ku soo saari doono rabbi ogeysiinaya adoomadiisa taa ogaada marka ma aha wax soo dhacay oo dhamaaday oo taariikhda galay maaha laakiin waa ila yawmi alqiyaama ila qiyaamada laga gaaro nabigeena maxamed asiif fasiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka sahih muslim ku yaala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam muslimiintu waxay la dagaalami doonaan yahuuda ila ay laayaan oo ka adkaadaan dagaal xun baa dhici doona markay ka adkaadaan baa yahuudigu intuu cararo wuxuu ku gaban doonaa geedaha iyo dhagaxaanta iyo buuraha hoosood gadaashooda ku gaban doonaan markaas waa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjizaadkay ka mid tahay geedkii iyo dhagaxii uu gadaal kaga gabaday baa hadlaya wuxuu leeyahay muslimow addoonkii ilaahayow yahuudi baa gadaashayda ku gabanaya kaalay dil hal geed mooye geedaha dhammaantood iyo dhagaxaantu muslimiinta u heelinaya halka geed waa geedka la yiraahdo qarqadka la yiraahdo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa geedaha yahuudu ka mid yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waa dagaal xataa ay geedaha iyo buuruhu gali doonaan waxa laga yaabaa inaad la yaabtaan oo tiraadaan oo waa jamaadaada sabay dagaalka ugu galay say u hadlayaan oo imisa sugan oo jamaadaad hadlay mid kale soo ma ogid jamaadaadkan inugu wareegsan inay adooma ilaahay inuu ciidankiisa yihiin allana tabaaraka wa tacaala xilligu dooniyo siduu doono u isticmaali karo laysa cala allahi biaziiz ilaahay kuma adka tabaaraka wa tacaala xaggee dagaalkani ku socdaa nihaayada uu ku socdo waa quraankuna ka warramay nabi maxamedna inoo cadeeyay sallallahu alayhi wasallam la taqumu as-saa'a bunabulay marka dagaalkaasi dhacayay waa mar qiyaamadu soo dhawaatay waa mar aan sugayno mar tagay ma waa mar qiyaamadu soo dhawaatay waa arrinkaasi marka wuxuu dhisayaa qalbiga dadka muuminiinta marxalada la mari waa la sukaana kaashaday maraykan israa'iil muxuu ahay yurub qaybkood baa isu kaashaday muslimiintuna inta tabartooda ah wixii nafi ku jirtay waa nool yihiin wali khudbadii horaan kaga hadlay ummadani ma dhimato laakiin waxoogaa hurday gashaa yaa waxoogaa wayaro seexataa waxoogaa wayaro daciiftaa laakiin ma baaba'do waxaa ku jira gudaheeda mufaaji'aad iyo cajaa'ib baa ku jira marba la yaab leh miyay kula ahayd adiga taariikhda adduunka inta la qiyaasi karo wiilal hub yar wata yaa diyaarada ma wataan sawaariikh badan ma wataan waxay sameeyeen oo gacmahooda ku sameeyeen inay israa'iil ay iyada oo dhan maqaayisteeda rogi doonaan oo aafadaasi ka dhici doonto oo ay isku dhex daadan doonto ciidankii iyo sirdoonkii iyo israa'iil oo dhan miyay kula ahayd ummadda waxbaa ku dhex jira marka weligaayayna kula sahlanaanin xaaladda ummadda nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar kastood istiraahdo way baabaaday oo ay quus gashaay markaasay ugu dhowdahay sida ilaahay quraanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala marka ay tiraahdo mata nasrullah hiiladii ilaahay goorma waay markaasaa waxaa la dhahayaa alaa ina nasrallahi qariib laakiin inta ka horeysa maraaxil baa la mari xaaladaagna waa la maraya waxaan ku gabagabaynayaa dagaalka iyo dagaalada kale muslimiintu ku jiraanba qusmale ilaahay wuxuu ballan qaaday kama baxo laakiin dadkeedii baa la sugayaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waqtina ilaahay ugu talagalayna waa jiraayo soo hormari mayso